waxaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye shirkan oo ay ka soo qayb galeen xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye oo ka badan 400 oo xubnood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mas'uuliyiin ka socota xisbiga mucaaradka oo cid marti ka socota dalalka Djibouti iyo Itoobiya salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal shirkan oo ah shirkii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan hadaladoodii kamid ahaa waxaan idin sheegayaa maanta sharaf ay tahay magaaladii caasimadda gobolka Awdal oo shirweynihii xisbiga lagu hayo xisbiga kulmiye wuxuu ku soo caanamaalay nabad wuxuu ku soo caanamaalay isdhegaysi wuxuu ku soo caanamaalay nidaam iyo hanaan cusub oo maamul waxaan ku soo dhawaynayaa oo maanta sharafii ah in shirweynuhu halkan ka furmo iyadoo madaxdii ay u dhan tahay walaalayaal tiifiyada ayaa lanaga daawanayaa waxaa la arkayaa habka aynu u qabsanayno si ay labada xisbiye macaaradkii iyo noogu daydaan dariiqa saxda inaga mas'uuliyad inaga saaran tahay shirka hadalku waa iska waa kooban yahay waan soo dhaweynaynaa waxaana noo sharafa runtii aniga iyo maayarkaba in maanta lagu qabto shirweynihii ama shirkii golaha dhexe ee kulmiye magaalo madaxda gobolka Awdal Boorame sharaf bayno tawaanu ku faraxsanahay welcome baan leenahay sidoo kale madashana ayaa waxa ka hadlay salaadiinta dhaqanka gobolka Awdal musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga oo cid mas'uuliyiinta lagu soo marti qaaday shirkan ee ka socotay dalalka Djibouti iyo Itoobiya waxaana hadaladoodii kamid ahaa runtii shalay bay hadalkay ku jirtay qaadku waxa weeye saddex qodob marka asalkeega culimadu waxay kala hadashaa dadka bulshada kala hadashaa xaaladda markaa taagan bay kala hadashaa oo wacdiga xadiisyada iyo waxay u dhaxgelisaa aayadaha quraanka arinta markaa taagan bay u dhaxgelisaa waxa weeye sidii aan shalay u sheegay sidii salaadiinta iga horeysaa u sheegeen arintan qabashada shirweynaha lixaad ee xisbiga kulmiye oo ku qabtay magaalada Boorama waa mid dareen badan la gelisay weeyi waa mid aad iyo aad noo soo jiidatay weeye haddii aanu nahay madax dhaqankii iyo bulshadii Boorama ama gobolka Awdal dhammaan waa mid aad noo soo jiidatay weeye haddii aan sanaanta intaan ku dhaafo aad iyo aad bay sharaf noogu tahay maanta inaan ka soo qayb galno oo nalagu marti qaado shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo Boorama lagu qabtay waxaanu ka mahad celinaynaa dhammaanba madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka howlwadeennada xisbiga iyo dhammaantiinba dadkii gartay ee maanta ku gooyey go'aamiyey in lagu qabto shirweynihiisa lixaad magaalada Boorame waxaad moodaa inaynu runtii aad iyo aad ugu baahi badan nahay institutionska axsaabta iyo kuwan kale dowladnimada inaynu xoojinno Somaliland maanta waxay taagan tahay crossroads meesha wadooyinku iska jaraan laba waddo weyn hadday is jaraan afar waddaa ka baxdo oo afarta jaw kala baxda bartamahaynu taagannahay midaynu qaadi lahayn 28 sano wax badan baa soo qabsoomay institutions dowladnimaa dhismay nabadgelyo iyo deganaanshaa la helay laakiin maanta challengeska ayna haystaa way badan yihiin inayna leecin in ayna gaabin waa run ninkii mikaalkan xisbiga ka hadlayo wuxuu dhabarada geesha dhaqanka siyaasadda ayay ku jirtaa in dhabaradayg la yeesho dhaqanka horumarinta ayay ku jirtaa in dhabaradayg la yeesho ugu dambeyntii madashana ayaa waxaa soo afmeeray oo arrimo badan hoga tusaalayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana uu yidhi hargeysa waxa ka footeeya marka foodku dhacayo gobolka Maroodiya iyo gabriel marka la isu daro waxay soo baxaan boqolkiiba 340 codka dalka laga qaado Booramana waxay soo baxdaan 6 boqolkiiba oo u dhiganta inta badan 100 kun oo cod baa ka codeeya average marka dhinaca marka la isku daro labadooda 340 iyo 6 isku daro waa 6 soo ma lixdan soo ma
sagaal iyo konton wey sagaal iyo konton xildhibaan oo hargey 100 kilomitir isu jiraya dalkii maxaa dhahaa markaa taasoo ku rafay waxaan gudbayaa arrimaha kale ee lagu dardaarmay ee aad horta berigii hore waxaa laga qaadan jiray xigmadda gabaygana waxa inta badan jiri jiray rag dhafooradu cad yihiin timcad oo kale ah oo gabayga tiri markaasaa cali dhow carabi xasan sheekh muumin markaasaa halqabsi laga qaataa lagu dhaqaa ilaahay mahadi dhalinyarada la yidhahdaa xidigaha oo aad u yaroo gebigooda u dhashay sagaal dambeeyey maanta laba halqabsi bay aniga ii dhiibeen oo lamida kuwa timcadiya ay dhiibeeyeen odayaasha gabayaasha waxay nagu yidhaahdeen ninkii hawaysanaya hoggaanka dalkooda hankaagu ha dhaafo waa inoo guddoon somaliland Sakariya Saxane Boorama.